waxaan ku bilaaban doonaa dad islaam ah nahay sidii caadadu ahayd gaar ahaan reer Birmingham oo ugu yaqaan dhaqan diineed waxaan ku bilaaban doonaa aayadaha quraanka kariimka ah khayru ma yubda wa quraan kariim waxaan noo akhrin doonaa walaalkay Axmed Maxamed Xamari falyatafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أنا أقول الله يا مجا كنت قاعدة حفلة قيمها بدل waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee nagala soo qayb gashay xafladan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Birmingham waxaan dala jooga gobolka kale ama magaalada madaxda London dad ka socda dad Leicester ka socda Manchester dad ka socda inta way joogaan waan soo dhaweynaynaa intaas hadii aan u joogo waxaan rabaa warbixin kooban in aan u sheego madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran ee la socda oo ku saabsan magaalada Birmingham. magaalada Birmingham waa magaalo macnaha qiimo leh isla markaana dawladda dhexe ee Soomaaliyeed dad fara badan oo muxuu ahaa aqoonyahan leh ama wasiirro ku-xigeen leh ayaa meesha tan ka tegay oo dawlad ka tirsan. haddii aan ka cusub qaar waxaa ka mid ah wasiiradii hore Maryam Qaasim oo laba wasaarood wasiir ka soo noqotay waxay deganeed magaaladan waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadka aqi magaalada tan ayuu ka tegay waxaa ka mid ah dad fara badan oo kale oo magaaladan macnaha qiimo ku lahaa uu ka mid yahay taliyaha ciidanka badda Ufurow wuxuu deganaa magaaladan oo maanta ka ah muxuu ahaa taliyaha ciidanka badda Soomaaliya. marka madaxweyne ku-xigeen waxaan ku sheegayaa magaalada tan waa dad aqoon-yahano ah waa dad ka tirsan dawladihii hore ee Maxamed Siyaad Barre ka ahaa maamulo xilligaasi waxaa ka mid ah ninka walaalkay Qoryooley agaasimo macnaha wuxuu ka ahaa wasaaradda caafimaadka waxaa jira dad kale oo badan oo hay'adihii dawladda ee Maxamed Siyaad Barre wasiir ka ahaa ama xildhibaano ka ahaa aniga waa ugu dambeeyo anigu waxaan ahaa haweentii gaarka ee Maxamed Sheekh Ismaan waayo Maxamed Siyaad Barre madaxweyne ku-xigeenka labaad madaxweyne ku-xigeen Birmingham caawa taariikhay u tahay imaatinkaada waxaan rabnaa inaad uga sheekayso wixii maamulka galmudug oo wanaaga oo qabtay iyo wixii horumar oo qabtay dhagtaa loo wadaagaa maxaa yeelay dadka degan meeshaan waxay u badan yihiin galmudug state dad ka socda run ahaantii meesha aad ka timaadeen waa dhul baahi badan ay ka jirto siyaasadaha xoogaa ka soo horjeedana ay ka jiraan iyo faragelin shisheeye intaba waan ognahay oo dhibaatooyin fara badan ayaa wajahaysaan laakiin waxaa la rabaa haddee waxaasoo dhan inaad u adkaysataan oo aad ka biyo keentaan oo aad dadka halkaa degan isu duntaan oo isu keentaan oo aad ka shaqaysaan sidii arrintaas aad u midayn lahaydeen
مستقبل كان هذا ونقول الله إذا المجال ماذا حديني قبل كأو هذا عداده وكمل جرى الدكتور اللي وصلنا هذا تجي لهيدا وأنا أقول وحيالها شراء أوردر لكن وحيوبها هي صمت هي وعقل علم هي دلال هي عدالة أنت سيئوبها هي جيسلم أنت سيئوبها هي أنا أقول بريء عن السيني وحنا لهيني وربان فلك دكتيسا فدرال كودواتو كيري كراي وين عم بسلين لكن مركي دب لو باري أن واحد صباح هذا فدرال كي وقف عناوي إنه يهجل مذو أن Soomaali meel ay ku dhan tahay dhulkeeduna uu maaragtay ilaa geeska gees wax soo saar iyo horumar xoolo iyo barwaaqo leeyahay deegaankaasna ilaa iyo xuduudda Kenya ilaa xuduudda Ethiopia niraahdeen ilaa badweynta Hindiyana uu isku xiran yahay marka Soomaalina cid ka maqan aanay jirin oo qabaa'iladii waa ogaa Maxamed markii wax la qaybinayay wax la kala ridaayay Soomaaliya dhan baa soo istaagtay jira anagana qaybteena waa rabnaa marka federaalka saxda ah ee Soomaaliya hadda ka socdaahay meesha asalkeedu waa federaalku uu sax ka yahay waa galmudug anigoo ku hadlaya gabdhaha qaatimo magacooda waxaan rabaa halkan inaan hambalyo khaas uga diro shacabka reer galmudug وأنا وشخصيا هذا أنا غير خاطر وأنا تاجنا يعني هيلي هو وأنت بدو ولا قرب تاجنا لكن هدي بس هي شكل الحواشي كدايو غير قلمد وحقا وأنا حلينا يعني أنا قدايان حبس غير قلمد وكسلان وقلت تاجنا هنا لو تاجنا هذا بار ربنا أنا ومركان أنا وشخصيا استهلا وأنا عمل مسلية إلى يوم عالم بالسعود قلبي وقلاوة دبل السعود ولا يبقى ما حريم حتى وأنا قلت بإنه يروح مرة قبلية حفلة حتى وأنا قلت مركا أنا والسلامة يا مدفعين وكحجين كي يكتب لا سعوتها وحاليها إلك القعان هم الله وياه ذلك إن كانوا قوي يساي عالم كبلوغ قال أنا قلت لي هاي ورثة حقها هوسنا الله هذيك اللي كان على كلامنا ومستقبلنا وكذا نمر سيد محمد عبد الله حسن لنا حكى خبنا يبان كاسون بان وضعنا وكم بان تورين تتوه التوري محنا طوالك أنا قام وعلى هالك عن كمسيا من كوجي كنا كنت من المنطقة أنا وياه كنت عن دورنا محمد عبدي على محمد عبدي عاشر كنت وعوي يغلبنا السعود كمل الدائر عيدي يغلبنا على الكوري من هذا كانوا شرفتنا والسعود ما شرفت كله وحاليا كسود هذا ويلا في المكان وقاعد نروح عام كتاي سود وين شرفتي كرامتي كرامة مسك آد بالله أمانة حرنا ضد طلبان الله أمانة يمكن وان عاولا واحد رتيب جديد waxaan u leeyahay madaxweyne ku-xigeen waad soo martay gobollo kale oo UK dad saamataana ugu nadaamsan oo u kuusan oo wax iska maqlayo madaxdooda soo ajiibeyso qeyle iyo kuma daba socdo kala dambeeyo anigu caan baan ku nahay waxa aan bilaabay ma waa ilaa shad wasan halkan wax ku soo dhaweeyay ilaa shaqada ilaa iyo hada marka waxa soo dhamaada ilaahay waxa ku soo go'skale gabdhaheena ayaa wixii intaan isku haleey karno hadii dadku gabdhaha xaqooda ka liitaan inta ma soo tagashay marka gabdhuhu waa amaanayiin waa sharfiyiin waa maasiyiin odayaasha haddii aad u soo jeestana niman liita ma joogaan nimankan caadi hor fadhiya raggii madaxdii mata raggii wallaahi magaalada waxaad wadaamo adaabada loo soo xiray odayaasha caadi si fiican isku xilqaamaan aad baa u mahadsantihiin مدن مدحوينه ku-xigeen waqtiga dadkii waxay ahaayeen idin saadaaliye adinkoon dhalan adinkoon magaca la bixi doontaan ka maamul ahaan la ogay adinkoon statekiidu sida uu noqon doono aan la ogeyn dadkii halkaan ducada maadaama magaalo ay diimeen tahay ducadeennii ayaan caawa idinka aragnaa waana ku faraxsanahay runtii waxaa kaloo xusid mudan anoo ka mid ah jaaliyadda reer Birmingham inaan ahayn dadka ugu dambeeyay ee maamulka
maxaa maamul goboleed qaata taasoo ay nagu qasabtay annagoo sugaynay ummadda Soomaaliyeed oo aan maamulo kala ahayn balse hal jamhuuriyada maantana wixii loo dhayaa ceemankeena markii la yiri waxaan go'aan ku gaarnay inaan annaguna maamulkayga dhisno taageerno sidaasaan idinku soo dhawaynaynaa sidaasaan madax loogu tihiin xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo mid ah macnaha maamulada anigu aad ka midtiina waxaan u arkaa wax isku soo jiid iyo wax isku soo dhawayn sidaas daraadeed sidii hortayda la yiri waxaan aaminsanahay xildhibaankiina madaxweynihiina ku-xigeenkiina wasiiradiina waxaad mas'uul ka tihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan waxaad mas'uul ka tihiin kuwa dhigbaxayoo la sheegay waxaad mas'uul ka tihiin kuwa aan codkooda la maqal oo jugraafi ahaan Soomaaliya ku yaala laakiin laga yaabo inaan cidna codkooda maqal oo dhibaataysan nabadan qaasmanahay waxa weeye maamulka iyagu waa maamulka aad og tihiin oo asagu iska gobonnimo doon gobonnimadiisu cid kama doonayne dalkii baan waxaan u diidaynaa inuu noqdo laba waddan oo aan islahayn dad baa sheegtay oo yidhi waxaan doonaynaa inaanu ka go'no Soomaaliya deegaankii dhan dadkii deganaana waxay yidhaahdeen waxaan ku khasbaynaa inay nala go'aan haday nala go'i waayaanna dagaal baanu ka qaadayna innagu arrintaan hor taagannahay waxa weeye Soomaaliya inay kala go'do dadka waxay uga hadlaan waxay doonayaan waxay moodayaan dadka dadweynaha intiisa badani muhiimadda iyada ama dagaalkayga inuu ku bees garaysan yahay ama ku dhisan yahay inaanu maamul samaysano annagu maamulka waxaa nooga weyn Soomaaliya inay kala go'do calankaas buluugga inuu noqdo maalintan waatii ay soo jeediyeen dowladaha ajnabiga ee dariskayna la'ay in xataa xidigta laga jarjaro shanta xidigood geesaha in laga jaro labada israacday kaliya la isku soo reebo labadiiba mid haddana waxay leedahay waa ku ayaaba marka macnuhu waxa weeye calan Soomaaliyeed ma jirayo marka qadiyadda ugu weyn ee Khaatimo u dagaalanto taas weeye waqti badan ayaad sugayseen oo fadhideen waxaan rajaynayaa in waqtiguna hadda uu gabagaba yahay warbixino badan oo aan wadnay oo aad u fara badan waxaan u daysanay madaxweynaheena maadaama uu nala socdo Maxamed Xaashi Carabi inuu warbixinta ay siiyo xagga nabadgelyada iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo isbeddelka ka dhacay intii jarayd oo aan maamulka haynay marxaladihii aan marnay oo dhan in macnaha uu soo gudbin doono haddii Ilaahay idmo runtii annagu halkaan waxaan u nimid labada waxyaalood waxaa weeye jaaliyadda galmudug ee adduunka ku nool inaan la kulanno taas jaaliyado badan baa marnay oo magaalada Leicester iyo ay ka mid yahay London iyo Birmingham oo caawaya wixii message aan u wadnana waa u gudbinay beesha caalamka waa la kulannay oo waxaa la wixii aan ka rabnay iyo wixii ay naga rabeen runtii waan isla fadhiisanay wax badan baana iskala garanay dadku waxay halkan u yimaadeen oo isugu soo urureen ma aha inay soo dhaweeyaan oo keliya madaxda laakiin waxaan caaw u malaynayaa waa xafladdii toddobaad ee laga bilaabo bilowgii ilaa dhismihii galmudug lagu qabta halkan dhammaan dadka halkaas oo juhdi bixiyo waxay doonayeen inay arkaan nidaam ay markan ay mataqaana hareeraha ka fariistaan dadka yani degan maamulka dadka degan dowlad goboleedka mataqaana galmudug state deegaanka waayo sida loo yahay nidaamku waa weelka bulshada wax loogu shubo haddaan bulshadu nidaam lahayn ma laha waxay wax ku qaybsan marka maadaama la rabay nidaam idinkana ilaahay uu hadda idinkaga dhigay mataqaana marka ugu horreysa gacanta idin geliyey wixii laydin fari lahaa waxay ahaayeen war nidaamka aad maanta gacanta ku haysaan ummaddu leedahay madaxdeena cadaalad ku sameeyay si berrita marka taankiinu dhammaado aad u tiraahdaan maalintaan annagu nimid halkaasuu jooga dalkii deegaanka maanta oo waqtigii dhammaadana halkanaa soo gaarsiin marka federalismka waxaan u fahmayaa markaan daraasad badan sameeyey in Soomaalidu ku habboon uu yahay in awoodda la gaarsiiyo tuulo walba in awoodda la gaarsiiyo oo cunuga ama wiilka ama gabadha Soomaaliyeed ee maaragtay meel ay ku helaan waxooda meesha ay joogaan
meesha ay xoolaha ku raacanayaan ama tuulada ay joogaan in markaa waxbarashadii lagu geeyo cunto loogu geeyo daawo wax kastoo bini'aadamka primary needs wax la yidhahdo wax kastoo u baahan yahay lagu geeyo uusan ka sugin maaragtay meel dheer inaysan u aadin adeegyada dowladeed ayaan u haystaa inuu maaragtay federalism ka noogu habboon inuu kaasiyahan u haystaa sidoo kale waxaan aad u xiiseynayaa sidoo kale in adkeynta sharciga macnaha inay muhiim tahay in sharciga la adkeeyo hadday waxaan maqlay khiyaarta qaar oo maaragtay waxaa laga hadlay cadaaladdu ma imaan karto cadaaladdu dadka ma keenaan moogtahay haddaad ku haysaan madaxweynaha ama ku-xigeenka ama xildhibaanku cadaalad ha keenaan cadaalad ma keeni karto cadaaladdu laakiin waxay ku imaanaysaa mid aad kulligiin hadda waddankaan aad ku joogtaan dadka caddaanka idama siin laakiin sharciga ay siin marka sharciga in marka la adkeeyo baa soomaalida maarata annaga dad noogu jirta taasaan rumeynaa ka shaqo kooban ama aad u fara badnayn qaar ka mida aan xusi doono hoolkan caawan joogno oo ah ilaa wuxuu ahaa hoolkii ugu horreeyey ee markii la aasaasayay Somali Central State lagu qabto oo meydina loogu aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u yeeshay markaas inay wax ka soo abaabulaan xafladdii ugu horreysay ee lagu aasaasayay Somali Central State sidaas daraaddeed mar labaadna madaxweynaha waxaan leeyahay ku soo dhawow Birmingham UK Mosley and Hilaa Hall oo adoo hadda xil Soomaaliyeed oo Somali Central galmudug madaxweyne ku-xigeenkeedii ah ku soo dhawow taasina waxay tusaale u tahay carabta waxaa ku maamaahan man jadda wajada wa man saraca xasan qofkii dadaala waa gaaraa kii beertaana waa goostaa halgankii uu galay mirihiisii ayaan caawa joognaa waxaan rajaynayaa dadka uu xilka u hayo deegaanka galmudug iyo kii sida khaaska markii hore u doortay oo ahaa waxaan ku rahdaa Somali Central State iyo midka guud ee Soomaaliyeed intuu inay mahadin doonaan xilka uu hayo una fursadaas taariikhda ku hadda waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay madaxweynahayga saaxiibkay Maxamed Xaashi شرفتا مقالة بيرمهام في UK رك دمر وضياء العصرته طيبها كالدون ودم ميديا صحافة فنانيتا أمانتي جالية كلا وككلي من لندن مانشستر مقالوين كلا وكحير الرمان بيرمهام أمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا runtii waxaa sharaf weyn ah inaan maaragtay caawa xafladan kala soo qayb galo ayadoo maaragtay dhulkan ambaarka ka hor ugu dambeysay runtiina aan ku maqlay maaragtay dalkeeni hooyo si uu maaragtay isbeddel uga dhaca haddii uu leeyahay insha allah runtii waxaan rabaa wax yar inaad iga hidaysiisaan si aan isugu dayo wax yar oo ka ogahay meesha aan ka imid inaan idinku sheego wax yar oo laydinka baahan yahay inaan idinku sheego insha allah si aan haddaan iskula qaadano isku tareen u raacno isku meelna waa haddii leeyahay runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii iga horreysay oo halkan ka hadasho o dhan dhammaantood waxay ka hadleen waxyaabo badan oo aad u fiican oo taabanaya dareenka dadka ka soo qayb galay maaragtay xafladan iyo dhammaan annaga oo dhan
qaar badan oo kamid ah fariimayna fareen insha Allah oo isku dayna wax ka qaban karnaa inaan ka qabanno qaar badan oo kamid ah maaragtay muxuu ahaa waxbay ka hadleen waxaan rabaa intaan dadweynaha gelin ka hor in ayaga aqoontiyadooda aan wax yar ka soo qaato haddii la yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa gabadhii maaragtay qaatumo aamino runtii reer qaatumo waxaan u haynaa dareen weyn qalbigeena inooga yaalaan si dhab ah إن شاء الله نسكتينا فريمين هذا وهم مرة فري يكون أيضا ينفتح يكون كوري تذكر الفريم بيننا مارتي وغير صندوق فريم والله كذا يعني. والصح أتمنى كنجي الدور كده وكهذا شيء وبسكت وأنا رنتي أتمنى حنون بدل تذكر أنا ويتابعنا يعني أنا كنت من تذكر أدري ما يتابعنا يعني إن شاء الله أيها الأساس وكله وحجينا مقام كذا نجين دون وقت كذا تلاقي. رنتي الدياسبرا ذاتك أربعة كنا وها يوجين وها سومالي كتير وها أدب الدروة. دلتا ذاتك الدياسبرا ذا أربعة كنا سوماليات وحلاقيها بقى واحد بدن وجرين إن الله شيء واحد بدن وجرين ودن كيني كمغلان. لكن سوماليا وغيرتان يبغى كتير أو هذا كتير مليء. لكن ودنك سوماليا بيرجع عن وصلها حق سكوتي هذا حق كورنتي هذا تقالها حق السيدة معمولة المهم بقولها كلمة حق السوشيال سيرفيس السيدة عافمات كفرشة وحيوانات عدالة كتير تكلمة يدلوا يشين أو أنت أيضا الله بدي لعن ما أعرف إنه هو أخلاق دينا على سياسة دينا عمارة تذكرين كمقولين من النساء دلوشين ذا كتير وقلنا تلو بهاي نايجا وحيوانات يو فيشن 2016 كأو سوماليا لغض من اللي ماشي بصوته وحرب برانش كنا نقصد كبير وأصلاً عن واحد الكشري أنا في العيار كمانتين إلى درسنتين مانتا أما سويسرا كنت كأننا عن أنا وحسيت كلا مركي أنا مثل إلى هذا واحد بدنا كقبلنا واحد بدنا واجمعي هاي ديجانا نقول كأننا كل مدة خارج من هذا إلا ستة تجمع أو حاجة دير حرير فريق مارس كور كودي يملوا وليه حكوا كنا قاعد على الشباب لكن الشباب رجينا نمرحوا بيني كم في الدورة وحنا سوينا دروية يوم بي وهذا ما اسمه رتين لو سمعنا يه وحنا سمعنا العيد ما بدن أو كيلو مارس تين وحنا سكوتنا العيد ما دي مارس هراء كمان ديجان لكن كلتشوي سيدا مارس كوتشوي لك عوض يهكاس يوغير البلود كوجو سبرالي هكا كوجو حويني هكا علالي هكاس كوجو مارتي قال كعيو إلا يهبي هكاس ما أنت واسفرفنا وحنا كدينا مارتي إذا ما هلا ما أنت لو يقول بسي مارتي بريس كل شغل الموتان علم ذكر كوا البور يو دينا عاسنا وهم صوت وبرنا يودشوا ما دام دي ناس يسدولين هاد سعيد الأوبرا وأنا كسوق إحنا هذا نوع في جوان دي ناس قاربنا وكم إذا هذا الحلو ما عندنا من جوان dhammaan deegaanadaas oo dhan waxay leeyihiin ciidamo boolis ah oo ka shaqeeyo oo runtii aad iyo aad ugu shaqeeyo laakiin baahidooda dhaqaale arrimahooda insha allah dib waxay idinka taaban doonaan dhaqaalaha galmudug runtii dad badan ka hadlay galmudug maaha meel gaaja galmudug waa meesha ugu dhaqaalaha badan deegaanada maaragtay soomaaliya ceelasha shaalka oo galmudug ku jiro oo la hubo oo hadda diyaar ku ah in la furo oo sharciga haddeer la soo saaro oo sharciga haddeer baarlamaanka horyaal haddii la ansixiyo la helayo ugu yaraan maaragtay contractiga ugu horeeya horeyna maaragtay dowlado waaweyn ay u haysteen ee ilaa haddana daba taagan yihiin runtiina la rajeynaya in mar dhow la soo saaro waxaa ku yaalla ilaa 5 ceel oo shidaal deegaanada galmudug ay maanta ka taliso dadkeeni caawa ee aan ku soo dhaweeyay madaxweynaha galmudug intaas ayayna ugu idmaatay dadkii soo qabanqaabiyey inta ka soo qayb gashay jaaliyadihii dhammaan u mahad celinaynaa